kooxda burcadda badaha Soomaaliya ayaa saameyn waxay ku leeyihiin maraakiibta yimaada Soomaaliya sanadkii 2007 ilaa 2012 ayay aad u xooganayeen kooxda burcadbadeeda Soomaalida ah iyagoo afduubtay maraakiib badan oo ganacsi ah. kooxda burcadbadeeda Soomaalida ah ayaa afduubka maraakiibta ay u geystaan ay labadii sano ee la soo dhaafay 2015-2016 ay hoos u dhacayeen. maraakiibta la afduubtay 2015 ayaa ahaa tiradooda 246 afduub halka sanadkii 2016 ay afduubteen maraakiib gaaraya ilaa iyo 191. taas ayaa ka yar tiradii ay horey u afduuban jireen kooxda burcadbadeeda Soomaalida ah. sanadkan 2017 ayaa kooxda burcadbadeeda Soomaalida ah bishan Maarso waxay afduubteen markab nooca shidaalka qaada iyagoo ku haysta xeebta Caluula. xafiiska la dagaalanka burcadbadeeda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin uu shalay soo saaray waxa ay sheegeen inay khatar ku yihiin maraakiibta yimaada Soomaaliya kooxaha burcadbadeeda. gudoomiyaha xafiiska la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda ee dowladda federaalka Soomaaliya Muxidiin Cali Muuse ayaa warbaahinta u sheegay in ay dib u soo noolaadeen burcadbadeedii taasina ay khatar ku tahay maraakiibta ganacsi ee yimaada dalka. burcadbadeed dib ugu bilaabatay Soomaaliya way موضوع maanta ka hadlayno saxaafadkan dhibaatada burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya waxay aad u xoogaysatay wixii ka dambeeyay 2007 sidaas darteed ayaa dowladda Soomaaliya u aasaasay xafiiska la dagaalanka burcadbadeeda 2009 waxaan ku guuleysanay hadii aan nahay xafiiska la dagaalanka burcadbadeeda ciribtirka burcadbadeeda waana mid sababtay in ka badan 4 sano aan dib loo afduubin maraakiib maraysa biyaha xeebaha Soomaaliya. nasiib darro waxaa March 2017 bish hadda ku jirno dib u bilowday afduubkii burcadbadeedu ay ku haysay maraakiibta isaga gooshaysa biyo-badeedka Soomaaliya ee Geeska Afrika. dhanka kale kooxda burcadbadeeda Soomaalida ayaa ku doodaya iyagu inay yihiin koox kalluumaysato ah oo badda Soomaaliya ka ilaalinaya maraakiibta sida sharci darrada uga jilaabta xeebaha Soomaaliya. sidoo kale waxa ay xuseen in maraakiibta ajaanibta ah ay sun kiimika ah ay ku daadiyaan xeebaha Soomaaliya sida uu sheegayo mid ka mid ah kooxda burcadda badaha Soomaaliya. annagu burcadbadeedna ma doobdhan waa aragtaa waxa weeye xeebta meel aragtiyada maraakiibta annagu noo soo istaagayaan xeebtaasaanu ka aragnaa halkaasaanu ka weerarnay waxay burcadbadeed maraakiib doonyo qaadan jirtayo jaranjarooyin bay qaadan jirtayo waxa weeye ilaahu beertaan beelbaadaha caalamka bay u shaqo tagi jirtay annagu nooca maniin qoryaanu qaadanay inaan iska caabino xabad la dhaxno kadib waxbuu qubayaaba waaba u boodboodnay waxa weeye nafsadaydan ku biimeynay markaan ku dhahayo waan u boodboodnay annagu burcadna aan ahayn burcad waa dad ku talagalay oo qalabka lagu qabanayo wax walba leh annagu se ma aan ahayn naftaydan ku qabanay ilaahayna gashay oo aan la galnay wixii kalluumaysato ahaa oo wadanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay oo waxa weeye wadankaas nafti loogu keenay oo waxa weeye badahooda lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay. inta badan kooxda burcadda badaha Soomaaliya ayaa qafaashay maraakiib ganacsi taasina waxay khatar weyn ku tahay dhaqaalaha gobolka iyo tan Soomaaliya sida uu xusayo dhaqaaliyahan Cabdullaahi Sacad oo u waramay goobjoog business. horta dhaqaalaha guud ahaan gobolka saameyn ay ku leedahay gaar ahaan Soomaaliya saameyn ay ku leedahay marka loo eego gobolka waxay macnaha dhaqaalaha hoos ay u dhacayaa sababta marinka Yemen iyo Soomaaliya waa marin muhiim ah oo wadamo badan oo Carbeed ay ku tiirsan yihiin marka waxay sababaysaa in qarashaadkii transportation-ka ama maraakiibta isku gudbaysay ay kor u kacdo xagga security-ga ilaalintii xeebaha oo kor u kacdo marka maraakiibta qarashaadka lagu soo kireysto oo kale waxay noqonaysaa in ay iyadan kor u kacdo sida Soomaaliya oo kale Soomaaliyana maraakiibta qaar oo waaweyn ay diidaanba in ay Soomaaliya xaggooda ay soo aadaan marka koowaad waa in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed oo marinis ah oo qalab ku filan iyo tababar ku filan hela marka labaad waa in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka jilaabisan jiray xeebaha hadii ahaan lahayd in lagu taakuleeyo in qalab iyo mashiin ay ku jilaabeystaan la siiyo ama tababaro loo furo xag waxbarashada laga caawiyo. midda saddexaad waxay noqonaysaa in la joojiyo xaalufinta ay wadamada qaar oo dariska lagu eedeeyo ay ku hayaan iyo xadgudubka xeebta Soomaaliyeed. kooxdan burcadda badaha Soomaaliya ayaa hadii ay dib u soo laabtaan waxay khatar ku tahay maraakiibta ganacsi ee yimaada dalka.